بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواada Safi channel oo aan kaga hadalno arrimo badan oo faa'iido noo leh maanta waxaan ka hadlayaa arrin been ah oo millions of people laga dhaadhiciyay oo aan waxba ka jirin arrintaas waxay tahay sonkorta brownka ah in la yiri oo dadkoo dhan ay aaminsan yihiin aniga aan ku jiro aan aaminsanaan jiray in sonkorta brownka ah ay ka healthisan tahay ama ka faa'iido badan tahay ama ka fiican tahay sonkorta cad marka hadda waxa la cadeeyay in sonkorta cad iyo sonkorta brownka ah difference ka u dhaxeeya uu yahay midabka sonkorta cad iyo sonkorta brownka ah waa isku mid wax ay kala faa'iido badan yihiin ma jirto sonkor waa sonkor laakiin dadka sonkorta iyo magaranaysa industry-geeda ku jira ayaa beenta dadka ka iibiyay oo dad badan oo adduunka ku nool ka dhaadhiciyay in sonkorta brownka ah ay ka healthisan tahay kana waxyeelo yar tahay sonkorta cad sonkor sida aad ogtiinba sonkor waa sonkor ama ha cadaato ama ha brown ahaato sonkor waa sonkor waxa maxay ahayto wixii aad xitaa waxa jira anaga sonkorta cad iyo sonkorta brownka naqaana waxyaabo waxa jira marka dadka warshadaha ay isticmaalaan oo sonkoraha marka alaabta laakeega oo kale iyo biskuudyada iyo waxyaabahaas ay warshadaha sameynayaan sonkor cad badi ma isticmaalaan sonkoro kale oo ka qatarsan sonkortaas oo liquidize gareeyay isticmaalaan sida glucose, dextrose, fructose, sucrose wixii oo isku dhamaata oo dhan waa sonkor kana fogaada marka baakooyinka ku aragtaan magacyadaas aan hadda idin sheegay kulligood sonkor ayay salka ku hayaan waliba sonkorta aad taqaanid way ka khatar badan yihiin marka ka fogaada sonkorta brownka aan ku soo noqono sonkorta brownka waxa laga sameeyay hadda idin tusayaa maanta sida brown looga dhigo marka waxaan jeclahay inaad ka faa'iideysataan gurigiina ku samaysataan mar dambana aan laga dhaadhicin sonkorta brownka ah ayaa ka wanaagsan sonkorta cad sonkor waa sonkor hadaad u bareeraysid waa adiga go'aankeeda leh laakiin yaan been lagu sheegin oo lagu dhihin sonkorta brownka ku fiican ee cun marka ku soo dhawaada videoga ila daawada sonkor dambe oo brown ana suuqa ka soo iibsanina okay marka hadda waxaan sameynaynaa sonkortii brownka ahayd sida loo sameeyay rabaa inaan idin la share gareeyo saan idinka ballan qaaday kan waa sonkor waa hal bakeeri oo sonkor cad waa isa u jeediinba sonkorta cad marka waxaan ku daraynaa hadii ilaahay yiraa hadda ay idin tusay dhalada sug bahalkaan aan ku daraynaa waa organic molasseska marka waxay tahay intaan sameynaa idin sii sharaxayaa molasseska waxa laga sameeyaa qasabkii hadaa garanaysaan bahalkii qasabka la dhihi jiray oo la crash gareeyay dheecaankii ka soo baxay oo la karkariyay ayuu bahalkan laga sameeyaa marka sonkor uu ka soo jeedaa laakiin bahalkan xoogaa fitamiinada ku jira sonkorta brownka marka dadka ay leeyihiin way yara fiican tahay fitamiinada laakiin fitamiinadaas wax la sheegi karo ma aha molasseski waa kasta molasseski marka aan ku daraynaa saas uu eg yahay waxa saas u madoobo laamiga camal waaye molasseskaas sonkorta lagu qasayaa hadaad marka rabtid sonkortaada inay brown aada noqotona molasseskaad ku badinaysaa hadaad light brown inay noqoto aad rabtidna molasseskaad ku yaraynaysaa waaba intaasba waxa baakooyinka lagu soo shubayo oo laydin leeyahay light brown sugar iyo dark brown sugar waa sonkortaas cad oo molasseska lagu daray oo la soo baakeeyay waaye marka uma baahnid waataasa marka sonkortii saasay brown u noqotay haddaad rabtiin inaad more brown ay noqotona molasseska lagu badinaya haddaad light rabtiin molasseskaad ka yaraynaysiin sonkortii waa taas marka waa kaasaa sonkortii waa samaysanay hal bakeeriyo sokora hal qaado molasses ah qofkii aaminsanaa sonkor brown ahaa sonkorta ka healthisan sonkorta cad waa taasay ka noolo
okay marka hadda saan sonkorta u sameynayna waa aragteen sonkor brown oo dambeeya laga iibin iyo been ka faa'iideyso haddaad videogan jeclaysateen thumbs up isiiya haddaad ka faa'iideysateen subscribe gareeya sidaad videoyada kale soo socdaan uga faa'iideysataan haddaad wax comment ah qabtaanna hoos iigu soo qora insha Allah anoo isku dayi doono inaan ka soo jawaabo